بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكلنتي وعن أو نكسن كسر هذا برنامج جارة يعني كجهل الدنو هذا الدوانتن كسر يري تليها أيضا أما تليها بوليس كدلكن كوفر أفريقيا هذا الكاس وداوح وجن أوجستي لما نجنا استد الصومالية دي كل كان دلكن كوفر أفريقيا يضو هذا الكاس كدمركي ويري تليها أيضا بوب لوجستي إلى يبقول إلى واتن دكان وكميدا دكان الصومالية يقولين دلكن كوفر أفريقيا barnaamijkeenan gaarka maanta waxa igala qayb galaya gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee Western Cape Cabdiyare Jido iyo afhayeenka ururka ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika Cabdi Ahmed gudoomiye Cabdi labadiina ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ay ka bixi doono ama ka baxaya TV-ga caalamiga Universal markuu horeysa waxa hordhac kooban naga siisaa hadalkii taliyaha uu siiyay warbaahinta ee Soomaalida ka hor imanay بسم الله الرحمن الرحيم تليها أسبوع اللي صار دافي أيو شر جرائد وكوكبتي مجال كيب تاون قاسهان حافظ خليجة وحنا ماشى سوق الجدي هذا الله آد وحن وكوسابسن دتك أجنبي قاسهان ومدة صوماليات وحنا معناها شيء إن بقاله هي فائدooyin fara badan oo dadka wadaniga loogu talagalay inay dadka qaxootiga ah ay la wareegeen taasoo macnaha dhaawac u geysan karta ummadda Soomaaliyeed qaas ahaan oo ay ganacsato ka magaalooyinka hadda uu ka hadlay taliyaha waa gartay Cabdi wad maasan tahay su'aashan waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiye Cabdi maxaa sababay in taliyaha ciidanka ee wadankan Koonfur Afrika ee power kule wadanka in uu xilligan hadal ataagaya Soomaalida dalkan Koonfur Afrika gaar ahaan ganacsatada uu soo jeediyay hadalkaas oo dhaawac xun u geysan kara markaan ay ku kici karaan dadka South Africaanka inay dhac u geystaan ganacsatada Soomaaliyeed maxaa sababay hadalkaas ku kalifay taliyaha Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أولاً مركو ورئيس وحن سلامية TV-ga Universal TV السلقي سيهاي كيب تاون ودادهين يا عبد الكريم مرسل فارح عبد الكريم وكو سلامي هذيك يبوحان سلامي محوها سور قادها عبد الله غرشي سلام كبعدي هرتو وحان نصيب حماح وعيان درة وعيان درة مقوين oo wax lagu tilmaamo aan la arag nin taliyaha ciidamada booliiska dalka Koonfur Afrika annagu magangeliyayna siisay dawladda Koonfur Afrika waxaanu ku haysanaa wax aad iyo aad u ballaaran oo magangeliya ah oo ninkeennii shalay soo gala iyo ninkeennii soo galay 95kii ay isku si u ganacsadaan isku sina ay meel ugu wada nool yihiin taana ay hayday fasax iyo sharci aan la isku maaragtay controlayn oo aan la isku maaragtay dabagalayn ay dawladdu ayna siisay waxa marka ayaan darra ah markaan kaaga soo qaado Sinafoobidi 2008kii wuxuu ahaa taliyaha ciddii u loolataysay ee u ordaysay ee u gulfinaysay mintidka iyo shaqada dheer u galayay oo intaasoo miisaaniyada uga baxday dawladda Koonfur Afrika wuxuu taliyaha ka ahaa hormood buu ka ahaa marka waxa ayaan darra ah 2008kii Sinafoobidi ahayd waxay ka dhacday ay ka bilaabatay qowteen dadka wadankan ku noolna waxay fiirsadaan TV-ga iyo jaraa'idyada iyo newska iyo raadiyowga wixii ka soo baxana waa ay ku camal falaan marka Cape Town baa marka qasaare xoog leh ku dhacday Sinafoobidi 2008kii sida aad la socotaanba
khasaare aad u ballaaran baa ku dhacday waxaa lagu boobay waa gartay gudoomiye maxaa sababay marka taliyaha hadalkiisa xilligan uu jeediyey in uu hadalkaas dhaho maxaa sababa isleedahay maadaama hadalkaas uu dhaawac xoogan u geysan karo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika sida aad la socotaanba Cabdikariin oo aad la socotaanba waxaa jira ganacsatada Soomaaliyeed waa dad naftooda u shaqaysta dadka danyarta ah ee u dhashay reer South Africana yani maaragtay waxay iibsan karaan u haya ama u keena islaantii gabowda ama odaygii gabooba ama ciyaalkii ama agoontii guryahoodii ugu geeya kana kireysta waxay iibsan karaan maciishad jaban u geeya marka ganacsatada South Africa ayaad moodaa inay barasirka ay saareen sida hadda professor hadda maaragtay saddex nin ah oo saddex professor ah oo ay yani maaragtay hadalkiisii ay ku sameeyeen xayeysiin oo macnaha marka waxaad moodaa in ay ganacsatada ay yani soo buush gareysay ayaad moodaa laakiin ganacsatada gudoomiye maxaa ula jeedaa ma ganacsatada Soomaalida soo buush gareysa leedahay oo ganacsatada Soomaalida kale mise ganacsatada kale ee South Africaanka ah ee ka shaqeysta dalkan Koonfur Afrika waxaana soo buush gareysay ganacsatada South Africa ku nool ayaana buush gareysay oo aan Soomaalida ahayn ayaana buush gareysay oo localka ah amaba wadanka u dhashay nin cad iyo nin madow iyo nin guduudan waxay doonaan ha ahaadeen sida kambaniyada waaweyn dadkaas oo dadka yani maaragtay kaga iibsan jiray meelo fogfog baa looga imaan jiray annagana waxaan ugu tagnay dadka meeshoodii baan ugu tagnay waana noo dan ayagana u dan baanu nahay annagana dan baan u nahay waxaan kalantoon kordhina annagu dadka kama annaan qaadin shaqana kama annaan qaadan kamana aan qaadanin sida hadda aan taliyuhu sheegay in aanu dadka ka dhacnay muxuu ahaa maaragtay kutub daruurigoodii iyo wixii dadkii shaqaanu barnay Soomaaliya ka hor dadku shaqo ma aqoon fooranka kalanta waxay gataan sida daraagiska sida waxyaabo kale waxyaabo maaragtay lid ku ah dawladda lid ku ah ayay ka shaqaystaan Soomaalidana waxay ka shaqaysataa wax dadka dan yarta ah u dan ah Soomaalidana wax u qabta annaga waxaan ka shaqaysanaa waa taas dadkana waxay barteen oo ganacsi bay barteen dadka midowga ah dadkii wadanka ku dhashay ee dan yarta ah weligood ma aaminsanaan jirin inay u shaqeeyaan ganacsada kambaniya mooyaane in ay iskood wax u soo saartaan ma aaminsanaan jirin haddana waxa weeye dariiqii bay daadsanayaan looskii iyo qudaartii iyo sakireedkii iyo waxyaabaha la midka ah gudoomiye hadalkii taliyaha waxaa ka mid ahaa dadkeena uu yiri macnaha wuxuu la jeedaa dadka South Africaanka ah wuxuu yiri maalin bay guuleysan doonaan maalin bay kacdoon sameyn doonaan isla markaasna way guuleysan doonaan ayuu yiri muxuu la jeedaa hadalkaas والله هذا الكاس wuxuu la jeedaa waa hadal asaga nin shakhsiya marka uu taliyuhu sidaas yiri waa hadal aysan la qaadan doonin oo fashilmo buu noqonayaa maxaa yeelay arrin aan loo dad lagu ataagay weeye nation lagu ataagay oo Soomaaliyeed lagu ataagay ummadaha qowmiyada kala duwan baan wadanka ku nool oo nin cad iyo nin madow ah Afrikaan fara badan baa wadanka ku nool waxa inta fooranka ah ee wadanka ku noolna wuxuu ataagay Soomaalidu ataagay laakiin ma mira dhali doono hadalka oo meeshaas ka sheegay waxaana ka shaqeynaynaa in ay dawladda South Africa ay apologize ka bixiyaan taliyaha hadduu ka bixin waayo inay dawladda ay apologize ka bixiso haddii ilaahay waa gartay gudoomiye waad mahadsan tahay cabdi saameyn intee la eg ayuu ku yeelan kartaa ama saameyn intee la eg ayuu hadalkan ku yeelan karaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Koonfur Afrika maadaama uu taliyaha yiri hadal kicin kara shacabkii South Africaanka ahaa wallahi saameyn aad u weyn ayay ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha warbixinta ka soo baxday taliyaha booliska ay ku yeelan kartaa waxaa ka mid ah sidaad ogtahayba ummadda Soomaaliyeed waxay u badan yihiin ganacsata waxyaabihii uu ka hadlay taliyaha booliskana inta badan waxay u badnaayeen wax ku saabsan dhaqaalaha wadanka in macnaha dad shisheeye oo ka soo booday siliga macnaha xuduudada South Africa in dhaqaalihii wadanka ay la wareegeen sidoo warbixinta uu si toos u siiyay saxaafadda markuu la hadlayay taas marka waxay keeni kartaa gaar ahaan asagoo si toos u abaaray ummadda Soomaaliyeed in macnihii dadkii kacdoon ay ku sameeyaan ummadda Soomaaliyeed oo waxyaabo ay dhici jiray oo ay ka mid ahaan xenophobia 2008 boobkii dhacay jabkii ummadda Soomaaliyeed ku dhacay in dib ay u soo laabtaan oo dadkii fikradooda ku wajahneed ummadda Soomaaliyeed
isbeddel culus uu ku dhaca maadaama ninkan waxaad ogaataa in nin madax uu yahay waa taliyaha booliska ee waddanka oo marka la fiiriya hadda ka amar qaadanaya madaxweynaha un cid kale uu hoos taga hadda ma laha madaxweynaha ahayn waana nin aad iyo aad loo aaminsanaay oo xagga awoodda iyo xagga maarag siyaasadeed xitaa madaxweynaha hadda markuu dooranayay dad fara badan ayaa ku taageersanaayeen doorashadiisa iyo magacaabidda loo magacaabo jegada u ahaaya marka isla mar ahaantaasna waa ninka u xilsaarnaa amniga waddanka ummaddii dadkii markaas uu la hadlayeen waxaa ka mid ahaa dad boolis ah oo ciidamada booliska loogu talagalay ammaanka qaxootiga inay ilaaliyaan qaas ahaan ammaanka ummadda soomaaliyeed oo meelaha dukaamada iyo halista faraha badan ay saamaynaysa marka waxaan u malaya saameyn aad iyo aad u weyn ayay ku yeelanaysaa maadaama waxyaabaha laga hadlayay dhaqaalaha iyo ganacsiga ee ku koobnaa inta badan waa gartay gudoomiye adigana maxaa ku daraysaa saamaynta ay ku yeelan karto soomaalida arrintaas wallaahi saamaynta arrinta ay soomaalida ku yeelan karto waxa weeye waa sida uu walaalkay u sheegay cabdi axmed aad iyo aad bay ugu yeelan kartaa saamayn maxaa yeelay dadka kan waxa weeye maaragtay soomaalidu waxay ka shaqaysataa sideedaba dukaaman bay furtaan oo way iibsadaan dadka kale ee fooranka ahna ayaga ayaa macnaha maaragtay hawlo kaleenta ayay ku mashquulshan yihiin oo meel maharada ay u furan tahayba lama helo laakiin soomaalida maharadooyin ayay ku dadaalaan marka saas la ajligeed meeshii waxaa ka faa'iidaysanaya tuugo shacabka South Africa sida aad la socotaanba waa dad aad u fiican sax waa dad aan yacni maaragtay ka qoomameeya dhibaatada soomaalida loo geysto wax yar oo maaragtay kareem ah ayaa yacni ku jirta South Africa kareemkaas ayaa ka faa'iidaysanayo erayadaas laakiin ilaahay waxaan ka kareem maxaa ula jeedaa kareem waxaa ula jeedaa kareem dembiyada ula jeedaa dembiilayaal baa ka faa'iidaysanayo marka waa waxaan shacabka South Africa qabin South Africana shacabkeedu waa dad lagu qiyaaso ilaa 40 milyan haddayna nacbiin ama ay colaad noo qabaan meeshaan hadal kuma aanan yeelanen waa gartay gudoomiye hadda adinku waxaa ka mid tihiin madaxdii jaalidaha Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika cabdi waa afhayeenka ururka ganacsada ee dalkan Koonfur Afrika adiga waxaa taa gudoomiye jaalida Soomaaliyeed ee gobolkan Western Cape maxaa qorshe ah oo hadalkaas taliyaha iyo weliba professoradii ka dambeeyay ee jaamacadan wax ka dhiga ay Soomaalida ku ataagayaan ay soo jeediyeen maxaa qorshe ah oo aad kaga gaashaamanaysaan arrintaas oo aad samaysaan hadda arrintaas horta waxaan kaga gaashaamanaynaa inaanu garabka isqabsano sax gacmo wadajir bay wax ku gooyaan sax meel kasta oo aan joogno gobolkan Western Cape waa inaan u midownaa wiil iyo gabar sheekh iyo caami waxgarad iyo haddii aan ku runyaa cunug yarba in aan u midowno oo aan meel uga soo jeesano ayaan shacabka Soomaaliyeed Western Cape ku nool ayaan u soo jeedinayaa waxaan kalento ku tala jirnaa oo aan ka shaqaynaynaa dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo dilka gardarrada ah ee maalin walba nagu dhacayo maantadan hadda aanu joogno oo aadna waraysanayso oo aanu nala kulmeen wariyayaasha Universal TV mayd baa noo yaallo oo waxaa la aasayaa nin lagu dila xalay ganacsada Soomaaliyeed oo muwaadin ah Allah u naxariistay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadda galabta godkiisii baa ayaa qaar taagan yihiin isla xalay lafteeda waxaa lagu dilay meel baal u jirto ganacsada kale ayaa lagu dilay dilkaas sida aanu banaanbax weyn baanu dhigaynaa oo meel kasta oo aanu joogno iyo ganacsi kasta oo aanu leenahay albaabada loo xiri doono ganacsigaasna wuxuu noqonayaa ganacsi waddanka lagu ruxo oo xaq aanu u leenahay gardarro cad oo baadila baa nalagu dilaa cid aan wax u geysanaa ma jirto xaq baanu ku shaqaysanaa xaq baanu waxayna u gadanaa xaq baanu u taageernaa cid noo timaado oo muxuu ahaa custom inoo ah cid aan dilnay cid aan ku aabiyoonin ma jirto waxa weeye dawladda in muddaabay indhaha naga haysatay taana waxaanu maaragtay ku dagaalamaynaa haddaanu nahay horjoogayaasha Soomaaliyeed inaanu arrintaas meel qura aan uga soo jeesano aan dhigno banaanbax ballaaran waxaan karantoon codsanayaa oo codsi u jeedinayaa dawladda Soomaaliyeed ee federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha ka yahay ra'iisul wasaaraha ka yahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul baarlamaanka ka yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan
waxaanu iyo labada gole baarlamaanka iyo xukuumadduba waxaanu leenahay waa lala yahay cid u timaado oo madax ah oo South Africa timaado dibadaha iyo meelaha kalentana waa tagtaan South Africana waad imaala adihiin haddii aad timaadaanna Joburg baad ka laabataan Cape Town soo ma gaartaan Joburg waxaa degan ama Pretoria ee qowteen xukuumaddii baa degan Cape Town waxaa degan baarlamaankii baa degan waa laba meelood oo aan kala dhicin waxaan dawladda Soomaaliyeed si gaar ah ugu soo jeedinayaan waa in ay ka dhiibiyaan kana hadlaan dhibaatada iyo xumaha la gaarsiinayo shacbiga Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika waayo halkii wiil oo ku nool Koonfur Afrika wuxuu quudiyaa oo lacag u diraa 20 qofood oo familigiisa oo ku nool gobolada kala duwan ee magaalada Soomaaliya marka waa in loo halgamaa dawladdu ay ku dartaa halgan ballaaran South Africa waa inay u soo jeesataa dawladahana kala hadashaa qaramada midoobana ay la hadashaa qolooyinka xuquuqda bini'aadamka u doodaan ay kala hadlaan waa gartay Cabdi aan ku weydiiyay su'aasha kale Cabdi Axmed su'aasha ugu dambaysa insha Allah maxaad u soo jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika oo laga yaabo inay haatan daawanayaan maadaama cabsi badan ama ulul badan iska jiro maxaad ku dhiirigelinaysaa dadkaas wallaahi waxaan jeclaan lahaa kulley dadka ummadda Soomaaliyeed in macnaha xasilooni iyo ay muujiyaan oo arrimaha hadda soo baxay warbixinta ka soo baxday taliyaha booliska in macnaha xasilooni ay ka muujiyaan oo kalsooni macnaha gudahooda ku jirta ayaga ay muujiyaan oo teeda kale saameynta inta badan waxaa laga yaabaa hadalladan ganacsatada ay ku yeelanaysaa gaar ahaanna waxaan ula hadlayaa ummadda ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka South Africa in waxba aysan arrintan u arkin oo nin walbana uu shaqadiisii hawshiisa uu wato meesha ka sii wata oona ka digtoonaada dhibaatooyinka soo foosaari kara isla mar ahaantaasna wixii macnaha dhibaato ah oo ku saabsan oo laga yaabaa hadalladii taliyaha uu soo jeediyey in haddii wax dhibaato ku saabsan oo arrimahaas ay qofka ku dhacaan in si toos ah uu la soo xiriir guddiga Soomaalida waa gartay maastaa gudoomiye adiin maxaa ku daraysaa oo aad kula hadlaysaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika isla markaana walwal badan ka muujinaya arrintan horta waxa weeye wax Ilaah soo dhaaf noo imaan mayaan gartay dadka Soomaaliyeedna 100% waa dad muslimiin ah sax Ilaahay baan ku xirannahay gartay xumaan iyo shar iyo fidno cid noo wadana Ilaah baan ka hoos joognaa waxa la yiri diin baa la yiri wardiimo haad baa ku tashanaysa soo cad hiliba gartay marka suuri meesha igu tashanaysa soo Ilaahay ma joogin that's great marka waxa weeye taliyaha hadda meesha dadka kula hadlay Ilaah baa joogay sax annaguna Ilaah baanu leenahay dad Ilaah ku xiran baanu nahay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha istajiyeen maarata rabbigoodna ku xirnaadeen quraanka iyo diinta iyo arkaanta faraha badan lana habadiyeen waana ka guuleysanaynaa insha Allah ta'ala cid dulmi nagu salmeeyayso sidaas aan dheelaa shacabka waa gartay gudoomiye aad u maasan tahay daawadayaal barnaamijkeeni gaarka ah ee aan maanta idinkaga soo gudbinaynay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika isla markaana aad ka daawanaysaan TV-ga caalamiga Universal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka waxa igala qayb qaatay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika aan iraahday gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape iyo afayeenka ururka ganacsada ee dalkan Koonfur Afrika xagga kaamirada waxaa inoo duubayay Cabdullaahi Qorshe anigoo Cabdikariim Musal Faaraxna waan idinla socodsiinayay intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabad galbeed